maasadan magaceedu waxa weeyaan gurmada dadkiina waxay soo baxday 2016 waa sanadkan bishii 10aad shanteedii maalinimo Salaasa waxaana inuu soo jeedinaya aniga oo Cabdiraxmaan Maxamed Caare maasadan la yiraahdo gurmada dadkiina waxa ka hadlaysaa abaartan baahsan ee ka dhacday gobolada bariga Soomaaliya abaartan oo xal waara aan weli loo helin halkeeda waarana wuxuu noqon karaa ummadda oo iskaashataa ku kaashata abaartan soo noqonaysa sanad walba ku ayno dadkan waan ku gubayay hadhaaraad ku gowracay annaga jahayse geeridu la daristay baahida la galangalay haddaan gacan islaamnimo gacaliyo sakeeyaba guud ahaanba loo fidin waynu dabargo'aynaa u gurmada dadkiino jeebka gacanta geliyo u gargaara maatida dadkan gocasha reemee gidigoodba xoolii gacan madhan ka jooge geeliyo loodoodii gabankii ka leedmeen dabadheer gadeedii gaadhi saarbay galabtaba ku dhowde nafla geeri waaye dadkii way go'eeneen u gurmada dadkiino jeebka gacanta geliyo u gargaara maatida ulowaxuma waayine waa cashar gundheero garashada dadnimo iyo maanka lagu godlaaye isna galabsigeeni dabargiisuna waa gubad magaalo badu gooshi mayno jiri maayo ganacsigu u gurmada dadkiino jeebka gacanta geliyo u gargaara maatida toobadana adseegina inkastoo guniya baar buqcadeenan gaarka nimco badani guutaal dunyadiyo xooluu gobodeena weeyo waa gabaarsi maante haddaan qayladhaan guud gacan loogu fidino la badbaadin geediga waynu dabargo'aynaa u gurmada dadkiino jeebka gacanta geliyo u gargaara maatida